aad iyo aad baan ay farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qayb galo labadan guddi guddiyaashan farsamo Somaliland iyo Khaatumo yaa shirkan lahaa waxaase waajib ah oo aan isla ogol lahay in dana aan wada leenahay danayna waa seeto iyadana khasbaysa cidaan uga fasax qaadanayna ma jirto wada hadaladana way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo inuu mar walba koriyo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummadana inaan uga tago idina qoliyihiina gudidu de hawl baa inoo taala shirka dambe inta laga gaarayana dadkeenii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay goonyaha laga jooga la ikraah fi diin cid lagu khasbay ama ay jirto waxay dantoodu tahay de ilaahay idinka dhigay madax iyo mas'uul inaydan idinkuna hawsha aydan kama seexanaysaan waa ognahay kullukum raa'i wa kullu raa'in mas'uul an ra'yati taasa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahay aanu yeelo inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kowtahayna meel baan nooga soo wada jeesanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baan nooga soo wada jeesanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu frimbiga ama trumpetka na loogu afuufayay taa waa ka koray waxaan u baahanahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meelo loogu damaashaadayay madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyay bal marba meel bay joogtaa horta bal xamar inuu ku aado